xaaladda deegaanka Camaara oo ah mid kacsan dagaal xoogan oo saaka al-shabaab ay ku qaadeen gurmad ku sii qulqulaya magaaladaas iyo xog aan idinkaga helno wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay dagaalkii saaka Camaara ka dhacay. haddaba daawada inta aadan muuqaalkan guda gelin fadlan page-kan like saar follow dhasiina share garay si saaxiibo badan ay halkan inagula soo biiraan. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah oo saakay aroortii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Camaara ee koonfurta gobolka Mudug. weerarkan ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhex maray ciidamada daraawiishta Galmudug iyo militariga Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo al-shabaabkii magaalada soo weeraray. waxaana ay al-shabaab u suurta gashay inay la wareegaan deegaanka Camaara oo ah mid istiraatiiji ah. saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay inuu jiro khasaare lixaad leh oo ay gaarsiiyeen, waxayna sidoo kale ay shaaciyeen inay iska difaaceen weerarkii lagu soo qaaday sida ay hadalka u dhigeen. qoraal lagu baahiyey wakaaladda wararka ee Sona ayay dawladdu ku sheegtay inay iska caabiyeen ciidamada dagaalkii al-shabaab ay ku soo qaadeen. dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay in dagaalkaas ay guulo ka gaareen. al-shabaab waxay sheegteen in dagaalkaasi ay ku qabsadeen 14 gaari. sidoo kale xog aan helayno ayaa waxay sheegaysaa inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo wadar ahaan ka badan 40 ka mid ah dhinacyadii dagaalamayay. xaaladda Camaara ayaa kacsan, waxaana wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in ciidanka hubanta ah ay dib ula wareegeen deegaanka kadib markii ay isaga baxeen al-shabaabkii weeraray. dadka deegaanka ayaa sidoo kale wajahaya cabsi xoogan maadaama korkooda lagu dagaalamay, waxayna markan saraakiishu ay sheegeen inay adkeyn doonaan amniga deegaanka. Camaara ayaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay ee ciidamada xoogga dalka ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab. dhinaca kale warar aanu helin ayaa waxay sheegayaan in gurmad xoogan ay ku sii qulqulayaan deegaanka Camaara kuwaas oo ka baxay deegaanada Baxdo iyo Bacdweyn.